mar labaad ayaan la kulmay shiiqa markaa maanta waxaan doonayaa xadiis yar uu noo sheego markaa dhegeysi wacan daawasho wacan. ما شاء الله إلهي أكو حفظيه أكو فحسنا ما شاء الله تعالى ولا ليال أن كدانو استغفارت أن كدانو ذكر إله سبحانه وتعالى صوبته إله سبحانه وتعالى قرآن كيزوع كلية هي ألا بذكر الله تطمئن القلوب ذكر إله قلبي قد الجسام حسلوني فرح هذا الوهلا أكو دان إن شاء الله تعالى سلام السلام عليكم أهلا بكم إنسان قرب ونكسن ما ونكسن وفحاول نقع عصاني سبسكرايب واللايك صارت waxaan la kulmay sheekha caanka Sheekh Abubakar waan kula kulmay magaalada Istanbul dalka Turkiga sheekha ayaa waxaan ka codsaday inuu magaranaysaa in yar xadiis ah inoo jeediyo marka waxaan leeyahay walaalayaal aan ku dadaalno istighfaarta iyo dhikriga maanta waxaan doonayaa inaan kaga sheekeeyo faa'iidada ay leedahay istighfaarta marka waxaan ka codsanayaa hadii markii hore soo boqoto subscribe iyo like waa mahadsantahay runtii dadka maanta wax ka caawinaya nolosha maanta runtii waxay leedahay adkaatay waa sidaan mid wax haystay mid wax haysanba yani kii wax haystay oo Europe joogay ama America joogay shaqaystay maanta wuxuu ka caawinaya stress depression wareer ilmiyo laga qaato kii Africa joogay wuxuu ka caawinaya wareer iyo shaqo la'aan marka noloshu meel la kan fududa qofku waxa laga yaabaa waxba haystaa America jooga uu shaqaystaa Europe jooga uu shaqaystaa laakiin haddana wuxuu ka caawinaya depression wareer stress ka caawinaya يعني marka daawada stresska iyo magaranaysa depressionka waxay tahay istighfaarta iyo dhikriga Ilaahay subhanahu wa ta'ala waayo dhikriga qalbiga dejiya si shuqan noo sheegay dhikriga qalbiga dejiya ala bismillah tamam alqulub Ilaahay subhanahu wa ta'ala yiri dhikriga qalbiga dejiya marka hadii aad tahay qof magaranaysa ay ku badan tahay stresska walwalka walbahaarka magaranaysa dhikriga Ilaahay subhanahu wa ta'ala badi استغفرت بدي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بدي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بدي استغفرت ذكر بدي marka soo dhikriga u bato runtii noloshaada runtii macna way fudaanaysaa farxad baad dareemaysaa qalbiga ku degaya waayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadalkiisa been ma waa dhab waano dhikriga Ilaahay qalbigu dejiya maanta waxaa kastaa qof milyaneer hanti haysta haddana aan nolol faraxsan haysan waayo ilaahay muxuu yiri qofka dhikriga ka jeesta maciishta danka nolol ku noolaya adag marka waxa ilaahay noo sheegayo wax dhaba marka qofkii iska intira ayuu marut arki karaa marka si kastoo maanta runtii aad Afrika ku nooshahay ama Europe ay joogtid meel la maanta nolol maanta kan fududa qofka soo maanta jooga bini'aadan maanta adduunka jooga si kastoo wuxuu haysto meelan baa wax kasta barbaleen marka barbalanka runtii xalkiis waxa weeye waa istighfaarta iyo dhikriga subhanahu wa ta'ala waayo dhikriga subhanahu wa ta'ala waxa ku leeyahay dami daaf waxa ku leeyahay naxariis waxa ku leeyahay qalbiga ku degiyo marka walaalayaal aan ku daan istighfaarta aan ku daan dhikriga subhanahu wa ta'ala aan ku daan quraanka qofka garanaysa muslimka taas guuliyo waxay u tahay horumar marka dadkii maanta waxay ka raadinayaan yani qalbigu dego yani therapy-ga ama magaranaysa consultation magaranaysa qofku sameeyo qof waxa laga wax ku bixinaya consultation wada dadka Europe jooga u badan qof waxa wax ku bixinaya macna consultation qofka ku soo farsanaya ku leeyahay waxa sameeyo waqtigaas seexo magaranaysa hurda badi waxa noocaas ku sheegaya laakiin waxaa soo qalbiga kuma degayo ilaa magaranaysa dhikriga subhanahu wa ta'ala aad akhriso daawada depressionka iyo stresska iyo murugada iyo walwalka waa istighfaarta iyo dhikriga subhanahu wa ta'ala taas qalbiga ku degaya taas horumar ku gaaraysa laakiin hadda therapy iyo meel kale iska aado iyo consultation iyo lacag ku bixi iyo waxaas macnaha ma kaaga degayo qalbiga qofna runtii waxay tahay nolosha waa qalbiga وممكن سبحانه وتعالى leeyahay ilaahay ma fiirinayo jirkiina iyo muuqaalkiina wuxuu fiirinaya qalbigiina qof bilaanka meesha uu musan qalbiga wuxuu qalbiga ka xumaado noloshu way ka xumaanaysaa marka qalbigana wareerkii wax ka reebo waxay tahay dhikriga subhanahu wa ta'ala kaasa dejiya ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo sheegay mar hore marka walaalayaal ku daan istighfaarta qofkii maalintii inta uu yaro aqrin karo qofkii shan kun aqrin kara
qofka 6 kun aqri kara, qofka 10 aqri kara, yani qof kastaba intuu awoodo. Markasta oo dikrigaaga istighfaartaada badato runtii ma garanaysaa nolosha macnaha ku macnaanaysa. Marka waxaan leeyahay qof kastoo maanta hamil leh, qof kastoo maanta doonaya inuu meel gaaro, qof kastoo maanta wax ku haminaya, qof kastoo maanta dadaal sameynaya, dadaalkaaga dikri Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dar, istighfaarta ku dar, ma garanaysaa dikriga kale ku dar, subxaanallahi ku dar, dadaal. Wax kasta ma garanaysaa wuu ku hirgalayaan. Marka waxaan baa u dirayaa dadka daawada ugu xiran farxad ahaan sanadka runtii hadda wuu dhamaanayaa oo maalmaha runtii naga xiga. Runtii waxaan ka codsanayaa sanadka intaan la gaarin inaad ma garanaysaa subscribe iyo like isartaan. Runtii wixii tala comment igu reebtaan. Weli runtii ma garanaysaa waxaa naga maqan qalab baa naga maqan badan, camera fiican, microphone waxyaabo badan baa naga maqan. Laakiin nimada waan gaaraynaa. Marka qof kastoo i taageeray ama subscribe ii saaray ama maalin like ii saaray waxaan leeyahay waa mahadsantahay. Ma garanaysaa khayr badan Allah ku siiyo. Asxaabay ma garanaysaa waxaan u baahan taageeradiina, waxaan u baahan subscribe badan, waxaan u baahan like badan. Weli channel ku hooseeyaa 500 aan weli ka hooseynaa 1000 macaan gaarin. Marka asxaabay 1000 bal hana la gaarsiiyo. Ma garanaysaa bal like ta hala badiyo, subscribe ta, ma garanaysaa comment-iga. Ma garanaysaa anna meesha waxaan ku soo gudbi doonaa wax ma garanaysaa bulshada faa'iido u ah iyo khayr. Asxaabay waxaan ka codsanayaa si xushmad leh subscribe iyo like wixii fikirkaaga comment igu reeb waana mahadsantahay soo dhawaada dhamaantiin.